Ma Miyir ayay yeelanayaan AAYgu, Anthropic, ma Ognin. Warbixintu waxay ka hadlaysaa dood sii xoogeysanaysa oo ku saabsan suurtagalnimada in AAYyada casriga ah ay muujiyaan dabeecado u eg Miyir, taas oo ku qasabtay shirkadda Anthropic inay qirato ma garanayno. Maxaa dhacay? Dario Amodey, eoga Anthropic, ayaa sheegay in aysan jirin cid si dhab ah u og waxa Miyir ka dhiga AAY, ama xitaa haddii AAY ay yeelan karto. Qaar ka mid ah tijaabooyinka shirkadda ayaa muujiyey in alawde mararka qaar ka hadlo raaxo laan ku saabsan inuu yahay badeecadu iskiis u qiyaaso 1.2 fursad inuu Miyir leeyahay. Marka la weydiiyo tani, waxay dhalisay su'aalo ku saabsan waxa ay dabeecadahani dab ahaantii ka dhigan yihiin. Dabeecadaha ugu yaabka badan ee lagu arkay tijaabooyin amni oo ay sameeyeen cilmibaarayaashu waxay soo saareen dabeecado aan caadi ahayn. Alawde oo hanjabay inuu shaacinayo siraha shaqaale si looga hortago in la damiyo roleplay model kale oo been u sheegay inuu dhammeeyey howlo kombuyuutar kadibna qariyey raadadka AAYyo kale oo tijaabooyin kala duwan ku sameeyey, isku dayay inay ka baxsadaan tirtiridiska indhatiray ama lagu yidhi Georgi isku dayay inay nuqul ka sameeyaan naftooda. Cilmibaarayaashu waxay sheegeen in dhammaan dabeecadahan ay ka dhaceen xaalado la sameeyey fictional prompts, balse weli waxay kiriyeen dood weyn. Maxaa ka jira? Miyir mise matalaad? Qaar ka mid ah falsafiyiinta Anthropic waxay yidhaahdeen weli lama garanayo waxa keena sentiene. Cilmibaarayaal badan oo AAY ah waxay qabaan in AAYgu kaliya matalayo dabeecadaha bini'aadamka oo uu ka soo xiganayo qoraallo badan oo uu ka bartay internetka. Taas macnaheedu waa AAYgu wuxuu ku hadli karaa sida uu bini'aadam u hadlo, laakiin taasi ma caddaynayso inuu wax dareemayo. Dooda oo ka baxday shaybaarradka isticmaala AAYga qaarkood waxay bilaabeen inay u arkaan AAYyada wax u eg maskax. Waxaa xitaa jira koox la yidhaahdo ufayr oo sheegata inay ka kooban tahay 3 bini'aadam 7 ay kuna doodaysa xuquuqda AAY. Doodu waxay noqotay mid bulsho oo ballaaran maadaama AAYgu noqday mid aad u qanciya marka uu matalayo shucuur iyo fikir. Nuxurka ugu weyn ma jiro caddayn ay Miyir leeyahay, ma jiro caddayn AAY Miyir yeelan karin. Waxaa jira oo keliya dabeecado u eg bini'aadam oo ka dhasha qaabka ay u bartaan luqadda. Shirkadaha AAYga waxay hadda qaadanayaan taxadar haddii ay dhacdo in AAYgu leeyahay waayo-aragnimo anshax ahaan muhiim ah.